السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال meel kastood ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa wakhtigu haydin wacnaado sidii caadada inoo ahaydna muuqaal cusub baan idinla wadaagaya walaalayaal muuqaalkani waa muuqaal aad wada aragteen intiina badan intii aan hore u aragnaa waxa weeye waa muuqaal ay dowladda Jabuuti iyo shaqaalaheediiba xukuumaddu ay yiraahdo dhammaantood ee u dhaqaaqeen olole ah in abaaraha laga hortago abaarihii waqtiga abaaruhu maxaan ku rahdaa bilaamiye weey abaar badan baa ka jira dalka kolka waa qorshe waa qandaraas weey waxa lagu rabaa mucaawino eed baa lagu rabaa ayaa laga doonayaa waa beesha caalamka si ay u taakuleen u siiso lacag ama ha noqoto ama deeq ha noqote iyagu dantoodu waxa way taliskan mucangaga ah ee argagixisada ah oo horseedka ka yahay Ismaaciil Cumar Geele wax kale kama fikiraan waxa iyaga dan u ah sidee uga dheeftaa dhibaatada shacabka aad geliseen sidee ugu sii haysaana dhibaatada waxay kale ka fikiraan maxaan cunaa maxalliqa waa calooshod la ciyaar wey markaste ballama beenay qaadaan mana buuxiyaan ballantooda markaste waxay sheegaan hadal beena oon run ahayn oo maxaan ku sal lahayn wax kasta ay sheegaanna waa u caddaada dibaddu ilaahay u soo saarayna been sheegayaan waxaasoo dhan aad maqlaysaan iyo ummadda ee gaajada badeen ee maxaan ku rahdaa ee ku qasbeen inay cabsi iyo gaajo ku noolaadaan haddii ay ficil iyo geesinimo muujiyaanna waxay ku xukuman yihiin xabsi iyo ama dil qorshaysan waxaasoo dhan ceebtooda maahina waa caadadooda waa lagu yaqaanaa waxan inay soo baxaan un markay arkaan meel ay wax ka dheefi karaan amba wax ka helayaan fc maxaan cunaa maxaan liqaawey marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ogsoonataan horena waan uga hadlay mawduucan laakiinse waan raacinaya cimilada waxaan roobabkan iyo abaarahan la sheegayo ee dhacaya dabiici ma waa wax ay bani aadam ka dambeeyaan ee provokeyaan waa climat météorologique waa pluie waa roob la provokeeyey ama abaara la provokeeyey waa wax ay sameeyeen ayaa waxaan keenaya وكإلهي قرآن كيس سبحانه وتعالى أنه شيء محوري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وحد يبدأ أصوب بتاعي أو صوبحي مسوق ماسقي حمانتي يعني محنقول نباتدي ودين ظلمي لودي بوبكي يبلي لقدي تدكي لسكدا داسنية دمعة درتيد وحي قال لي وحي حمان اللي يسميني أوجد أيات يبدأ صبحي وكا صبحي دولكا كركيسة يبدأ الحديدة ayaana sameeyay bani aadam baa sameeyay kulka bani aadamku maadaama uu badan yahay dalal badan ay ka soo kala jeedaan tanna waa la mid saas ogsanaada walaalayaal muuqaal waxaan idin raacinayaa muuqaalkan daba socda ka dambeeya oo aad u muhiimsan si fiican u macneynaya goorta la bilaabay dagaalkan la yiraahdo dagaalka cimilada in guerre météorologique baa la yiraahdaa waxay noqotay cimiladu haddii agab dagaal bay noqotay un outil de guerre marka sida u ogsoonaada in wax dabiiciya oo haddii iska dhacaya uusan jirin wax bani aadam sameeyay mooyaan sidee loo sameeyay goorta la sameeyay waad maqli doontaan dhagaysta si fiican kana faa'iideysta intaad ay iyo qabyaalad iyo qurun leedku jeedinayo waxa leedka jeedinaya xaqiiqda waxa la wada dalka ka dhacay imika muuqaalka wada daawano daawasho wacan annagoo guddiya oo ka kooban wasaaradoo dhan wasaaradda solidaritega wasaaradda beeraha wasaaradda saxadda wasaaradda daakhiliga annagoo wada dhan iyaan shaqaynana iyo ciidankiyo na dhabar galay oon u yeedhanay oo kamyoonno siterna iyo wixii kale loo baahnaa meelaha baadiye dad joogin dad wasaaradayagu joogin na caawinaya waa kuwan ag jooga waxa iyagaba isku wada biirnay haraadka sokow oo la wada og yahay sida loola dagaalamayo booyadii biyaha foorashadii oo la hagaajinayo waxa ka sii daran iminkaan bilownay cuntadii bini'aadanka waa abaar la yaab leh oo dadkoo dhan wada tabsatay cuntadii bini'aadanka halkan han joogi iyo baabuuradaasoo wada buuxa waxaa la geynayaa baadiyaha 5 gobol
cuntadii xoolaha ku xigta cuntadii xoolahan dhimanaya intaan karanno baabuurays daba jooga 10 kamyoon baa imaka imanaya waxaan imakaan nii wada sheegayo waa hordhac waxa ku xiga sidaa iyo si leeg ilamaa xagaagu dhammaanayo waa isdaba joog waxa lagu jiray kolka waxaan nii sheegayaa abaartan lamay dheelisan. C'est une canicule qui a été déclenchée. En 1996, l'Air Force publie un document aux allures prophétiques. Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Il s'agit d'une évaluation stratégique et pas d'une fiction. Le rapport considère la modification du climat comme un outil de guerre, envisageant son utilisation à des fins offensives, défensives et même dissuasives. Ce n'est pas sans précédent. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient déjà expérimenté l'ensemencement des nuages dans l'opération Popeye, visant à prolonger la mousson. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Cela peut paraître surprenant, et pourtant ce n'est pas une technique tout à fait nouvelle, François de Closet. Alors, ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec des produits comme de l'iodure d'argent, qu'on utilise le plus souvent, eh bien on essaye, en répandant ces petits cristaux dans le nuage, de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. Et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a près de 25 ans qu'on étudie ça. C'est pas nouveau, non? Non. C'est une véritable arme de guerre? Alors justement, c'est probablement une arme tactique, si vous voulez. Si on veut par exemple lancer une opération de bombardement, eh bien on provoque la pluie pour gêner la défense anti-aérienne. C'est un peu comme cela. Alors, à l'heure actuelle, au Vietnam, c'est la mousson. Depuis le 10 juin, la saison des pluies. Il y a toujours d'énormes concentrations de cumulonimbus. Et dans ces conditions, évidemment, le terrain ou le ciel se prête à ce genre d'opération. Pendant longtemps, créer la pluie fut considéré comme un fantasme conspirationniste. Jusqu'à ce que Dubaï. What happened in Dubai? Dubai is making it rain fait pleuvoir dans le in a désert sweltering desert by en zapping zappant les clouds nuages with avec de electricity l'électricité à l'aide de using drones. drones. Fascinant, non?